والدويني دلك يا إسكالي كتاعد وغالي ودني لا تدارالي كتاب عيالي دينكي وداشالي وحليني يعني كل مجرنا برنامج دي قارك إفرين أبديت كأما حكسينتا في النمو أنو هاللينا أرمها قدام بالصوماليا وحنا أكو بالله بيا دليل قاري إلا إيو سجاشن إيشان دليل الصومالي ورق يدوم رسول جرو أي حبسية ذلك مريكا لجسو أروري أو مدة كحرية لجسو صاري وحنا اللي حقيقي إن قرر وتديار ده كقاضي ذلك مريكا كإيجو بريتو لو إن لقد جيو قرون كأذن عدي مقالة مقدشو dhalinyaradaasi oo la rumaysan yahay in ay iibsadeen ama ay ka shaqeeyeen sidii loo tarxiili lahaa ragga jooga safaaradda Soomaaliya ee dalka Mareykanka oo Taabid Cabdi iyo Mr. Awad kamid yahay waxa la socdo ciidan Mareykan ah oo geyn doona magaalada Muqdisho muddo dheer ay ku xiraayeen dalka Mareykanka dhalinyarada Soomaaliyeed dhinaca kalena haddii aan eegno madaxweyne Xasan Garguurte ayaa waxa uu ku amray ciidamada jooga degmada Cadale in ay si degdeg uga baxaan oo ay difaac ka galaan deegaanka Ceelmacaan ama dekada Ceelmacaan iyo dhulka mataqaana Jiiri Cisley ilaa Warshiiq waxaa la sheegay intaasi uu ka wato qorshe uu doonayo in uu ammaanka ku qalqalgeliyo maxay haddii ciidanka xoogga dalka ay ka soo baxaan Cadale iyo Raagaceele iyo dhulkaas ay joogaan waxay taas macna tahay inay al-shabaab qabsan doonaan oo ay al-shabaab la wareegayaan deegaanadaas dhinaca kalena waxaa la sheegay in Xasan Garguurte uu ku lug leeyahay dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka Shabeellada Hoose isagoo doonayo in uu furo jihooyin dagaal si dadka ugu mashquuliyo in dalka uu colaado ama dagaal ay ku jiraan oo dagaal lagula jiro argixisada al-shabaab warar kale ee xiisaha badanna waxa kamid ah in markab hubsiday oo la sheegay inuu ku socdo deegaanada Puntland lagu qabtay badda Kismaayo iyadoo markabkaasina iminka gacanta lagu hayo hub fara badanna uu sido dhinaca kalena markii ugu horeysay musharaxa madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu muujiyay wadaniyad ama tilaabo uu hor u qaaday ayaa waxay noqotay mid in lagu amaano uu ku muteestay kadib markii uu telefoon kula hadlay habeenimo xilli xiray jiraaga weyn ee
cabdi muruudi ajax madaxweynaha somalilan axmed siilaanyo isagoo u qabtay in 12 saac gudahood ninkaas magaalada muqdisho loogu soo celiyo si nabada sidaasina waxaa xaqiijiyey oo warbaahinta u sheegay cabdi muruudi ajax oo maanta soo galay barta facebooka ee dhibay xiritaankii lagu xiray somalilan ee gardarada ahaa ee foolxumada ahaa ee Soomaali naceebka ahay wasalaamantiin intaad ii doodeen intaad ii qayliseen mas'uul madax musharax ma sha Allah oo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed kow ka yahay boqolkiiba boqol waa idinku mahadinaa ilaahay ka soo waa idinku shukrinaa ma sha Allah ee waxaan idin sheegaa mid ha ogolaanina in aniga apologies hadda aan bixiyay apologieska shaatiga guduudan aan wato waa 2 sano ka hor waa markii ay universal xiraayeen ma aan hadda apologies aan bixiyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin nin waxa ay xiri shakhsi ah oo ujeedda gaar iga lahaay waana agaasimaha garoonka waa nin la dhahayo maxamed yuusuf oo dheer ninkii madoowi yuusuf ani xiri madoowi yuusuf waxa adeer waa cakusan la dhahayo adeerkayga see ku caysiyo aniga igu xiri waa nin dakana qabo qaranka Soomaaliland iyo ma matili karo mas'uul ma naqa karo marka waxaan leeyahay ninkaas mas'uul ma naqa kare mas'uuliyadda laga qaado waaye nin igu xiri waaye adeerkayga cakusad caysay waad xiran tahay laakiin baasaboorkayga iyo wixii kulli taamay ahaayeen visa intee kiimay safir ma noo fadhiya xagoona Soomaali visa u qaadaha maya ii ka baasaboorka isku baasaboor leen banaybe kan lay wataan ii ka be xamarna buuxan alxamdulilaahi rabbil caalamiin jagooyin ay ka qabteen mas'uuliyiin laga dhigay waxaan ogeysiinaynaa inaan ka adkaysi badan nahay inaan ka karti badan nahay inaan ka sharaf badan nahay inaan Soomaali jecel hayno inaan diyaar u nahay Soomaali inay midowdo laakiin ayaga magac Soomaali waa dhibaa nin Soomaaliya ka imaadi waa gumaadan nin Soomaaliya ka soo baxay waa ansuriyeen anaga laakiin Soomaali muqdisho hooyo qof walba u imaado ay jilbaha saartaa ilmaheeda waaye meeqa joogta inta oo heer Somaliland ah madaxa korkiisa ay naga saarayeen intaasna waxaan u sheegaynaa inaan ka muwaadan inaan nahay ilaahay idinkiisa oo idinkayn ahayn Soomaalina mid qurayna qanay insha Allah ta'ala riyay ku jiraan waxaan leeyahay riyada ka baxa maxamed yuusuf oo ani garoonka waa igu xirtay awood waa ii sheegatay akusa maxaad u caysay adeerkayga maxaad u caysay igu xirtay koodhe awoodaada ii kartidaada waa i tustay laakiin ogow tii ilaahay inay ka weyn tahay ilaahaygi lugtayda qaadi haddana iga kiin soo bixi ma sha Allah iyo dhamaan taageerayaalkayga adduunka oo ugu horeeyo saaxiibkayga walaalkayga إن شاء الله شيخ شريف شيخ أحمد سنكون سادالي لي وإن شاء الله وذا مدحوين نقي بإذن الله كريم sida aad arkayseen ba ajlaaga weyn ee Ajax waxa uu muujiyay dareen la yaab leh oo qof kasta oo Soomaaliya uu qalbigiisa dareemi karo sidoo xaalku yahay waxa yaab leh in xildhibaanadii iyo mataqaanaas xildhibaanadii aqalka sare iyo aqalka hoose iyo siyaasiyiintii iyo ganacsatadii muqdisho joogay ee ka soo jeeday Hargeysa ee ka soo jeeda Burco aysan wali ka hadlin sababta Ajax loo xiray waxaana yaab leh in ninkii hadda madaxweynimada ee waqti ka dhamaaday oo jooga Xasan Garguurti iyo kooxdii damajiid oo aan ka hadlin oo Shariif Sheekh Ahmed telefoonku waa casiilaanyo oo yiraahdo Ajax 12 saac ku soo daa waxa kale oo yaab leh kuwa waxaasi falaya ee shalay nasteexeendo ka soo ariyay Hargeysa ee u diiday nasteexeendo inay show ku qabato ee Ajax markuu tiga soo xiray inay maanta soo baxayaan kuwii kala gooynta ummadda Soomaaliyeed u heesayay ee gabadha islaanta lagu magacaabo Yurubgeeyo ay kamid tahay ay xamar joogto oo ay doonayso inay lacagta xamar hesho oo dhaniyadu u galaan sidee loo galaya dadka madamiirkay baaleen dadka ma aqliga la yihiin kuwa markuu jilaaga xamar ka tagay xirey xamarka ah ama gabadha xamar ka soo jeeda marka tagto soo masaafurinayo ay iidu raali ka tahay sidee naagti u heesaysa kuwaas ee kala gooynta u heesaysay ee dhahaysay ee xamar inaad tago inaad dhintaan ka xigaa iyo mataqaanaa ma muraala dilaaceen ma ooyeen ma qayroodeen ma burbureen ma qarxintii ku heesaysay Yurubgeeyo lahaa ma waxay mudan tahay inta xamar timaado in lagu soo dhaweeyo saas ma Yurubgeeyo mudan tahay dadka damiirka u saaxiibka waxay leeyihiin maya mamun gabadha jijiga tagtay ee wiilashii gabdhihii Soomaaliyeed
ogaadeenaya ee Soomaali galbeed ee la xasuuqay ee ku dul heesaysa beydkooda iyadoo tuuta xiran ma waxay mudan tahay in loo galo show ay xamar ku qabanayso may waxay mudan tahay sidii looga eriyo Nairobi in looga eriyo xamarna Soomaalinimada kuma imaanayso sahal iyo ciyaar kuma imaanayso wiilkaaga yarka gabadha yarka ee xamar ku dhalatay haddaad fahamsanay qadiyad waxay tahay waa inaad fahamtaa qadiyad waxay tahay waa inaad dadka ugu sarreysaa ee inaad dadka ugu hooseysaa ma aha qofka aan ku quurin jiritaankaaga ee qaraxa ku soo abaabulaya ee qofkaaga ee reexa markaa heetaga ku soo tarxiilaya ee ku xiraya ee ku bahdilaya kuwa u heesaya ma ahan inaad u gasho show u gasho ma aha lacagta $10 $20 aad ku bixinayso show Yurub geeyo iyo cusuriin lamida ku bixi abaaraha gudiga abaaraha u geey hadda caawa geey gudiga abaaraha hadda lacagta heli karto hees YouTube ku jira ka daawatee lacagta gudiga abaaraha ku bixiya lacagtaas gudiga abaaraha lagu bixiyo qofka xaalba kuma dhalan qofka lacag dadka gaajo u dhimanaya show ku gala xilligan lagu jiro qof xalaal ah ma aha qof Soomaali oo xalaal ma ah abaar baan nahayso abaar xun baan nahayso dadku way dhimanayaan xoolihii baa iscunaya qofka waa xili kara ee dhalinyaro ah intuu tumasho iyo show iyo bakti iyo habar cusri u tigi lahaa lacagta ha ku daro gudiga abaaraha u geey dhinaca kale shaqada ugu xiiso badan magaalada Muqdisho waxay tahay in qof doonaya inuu Soomaali madaxweyne u noqdo oo madaxii Allaha doorashada ka dhigto ninkii cadawga ahaa ee ummadda Soomaaliyeed dhameeyay ee la yiraahdo Korneel Gabra in Korneel Gabra uu madaxa Allaha doorashada Xasan Garguursan noqdo dimbi ka weyn miyaa jiro soo qiyaamo qaran ma aha anigu waxay ila tahay waa qiyaano qaran waa dimbi weyn la kala weyn oo loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ku baraarugaan Xasan Garguurte qaranka dimbi ayuu ka galay dimbigaas oo gal waxa la doonayaa in lagu qaado xildhibaanada waxaan leeyahay haddii maanta aad arkaysaan Gabri inuu leeyahay Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweyne ka noqomis koonfur galbeed haddaan taageerin qofkaan rabno asoo Etoobiyana oo Korneel cadow ah maxaa u maraysaa birka maal maxaa soo socdo waxa weeye waa inaad muujisaan maanta Soomaalinimo waa inaad codkiina ku ridaan ugu ridaan kuwa xabashada nacbihiin waa doqonnimo inuu Gabro Camar jooga maanta yiraahdo Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalkan wax ka noqon maayaan waa doqonnimo inta gara minority ah intay ay soo ku shiraan ay yiraahdaan nin daaro oo Soomaali madaxweyne kama noqon karo sababta ma taqaanaa Cabdiweli Gaas iyo Axmedow u nacmley oo daarooda halkii rab inay aga garaacaan ay u nacmleeyeen waxay arkeen inay isu dhiibeen marka way bahdilayaan macnaha meel ku soo hobsadeen Cabdi Ileeya intuu u dhiibeen meel ayuu wixii daarooda madaxa ka jiray oo god uga buuxiyay marka waxa soo socda waxa weeye waa Soomaali kala qaybinayo waa inaad dhigtaa qofka hawiyaha oo si gelin daarood madaxweyne ma noqon karo daarood madaxweyne noqon kara tireer weyne madaxweyne noqon kara shaansho madaxweyne noqon karta bandhabo madaxweyne noqon kara ma fahamto ma dhibaan madaxweyne noqon kara qof kasta oo Soomaaliya oo dalka Soomaaliya u dhashay madaxweyne ka noqon kara qabiilku doona ha ahaado laakiin maxay dimbi tahay in Gabra oo madaxa Allaha ka dhigta Xasan Garguurte inta Soomaaliya dhan kalsoonaa waay inuu Itoobiya ka raadiyo maxay u macno tahay ani kama jawaabay waxa ka jawaabay xogayaha guud ee xisbiga Darjar Axmed Macalin Faqi guud ahaan su'aalihi haddaan isku soo koobnaa anigoo taas ku soo khatimaya waxaa la yiraahdaa adduunka waxaa ceeb ka ah maahan ceeb waa la isku maxkamadayaa waa khiyaano qaran waay dad waaweyn qof agaasime la shaqeynaya dawladda ajnabiga waa la isku maxkamadayaa dawladda waa khiyaano qaran haddiiba ay tagto arrintu in banaanka intay ay timaado in madaxweyne geysto meel kalena way ka sii daranta la rajeeyay dadka Soomaaliyeed waxay ku naaloonaysaa 25 sano kan soo hayay khasaare noqonaysa hadiiba taasi ay dhacdo oo madaxtooyada Soomaaliya la geeyo cid ajnabi u ololaynaya ama ajnabi wato waayo aqliga oo meeshaas la fariisanayo waa aqliga lagu jeclaaday waana aqli
la meerinayo oo kor laga soo meerinayo taasna inta badan uma dhawa maslaxadda dadkaas ama dalkaas markaas qofkaas xukumayo marnaba ma marka xildhibaanada horaan u sheegnay waajib baa saaran waxayna dooran doonaan runtii sanadkan ay tijaabo noqon doontaa waxay dooran doonaan qofka ugu wadanisan oo feelday mayno qofka ugu wadanisan oo dalkan la isleeyahay uu ka saari karaa dhibaatooyinka ah in inta madaxdii gobolada loo yeero oo wadan kale inta looga yeero la yiraahdo hebel maaragtay u ololay Sharif Xasan oo South West haysta haddaan soo magacawnaba toos baa inta lagu tagay oo gabra ugu tagay ayuu ku yiri xilkan ka qaadaynaa 1 week todoba gudiis haddii aadan taageerin musharaxan wadano ah madaxweynaha hadda xilku dhamaanayo oo madaxtooyada yani halkaasay maraysa arrintii Soomaaliya marka runtii xildhibaanadu waajib baa u yaala nimankaasi isku daygooda way sameynayaan waan isku kaadee waxa la yiri hadii meeshii ili ka dhaco carabka u haweystaa la yiri Soomaaliya dhulka dhacday waana la haweysanayaa wax kasta oo xun baan la ku sameeyay noolaano oo la hadlo xitaa waa la gabayaa dad badan baan hadda xitaa intaas yar tahay oo la sheegayo aan sheegi karin ama meel la soo istaagi karin halkaas ala maraya laakiin waa la diiqaday anu marka waxaan dhihi lahaa arrinta qabyada ugu weyn oo dawladaha dariska qabyada ka waxay tahay Soomaaliya inay qaataan sidii Zakariya ayaan xildhibaankan ku raacsanahay wax u dhiman oo hadda filla Soomaaliya u dhiman kaliya yani filla Soomaaliya arrintan way ku xayndaab bay ku jiraan iyo waxaas ay ku jiraan anigu waxaan isleenahay Soomaaliya waxay u baahan tahay gabigeedaaba dib u xoreen u baahan madaxweynaheena ka bilaabanaysa waxa weeye madaxweyne dalkan u shaqeynaya oo danihiisa ka shaqeynaya marka meeshaas la geeyo xayndaabka madaxweynaha isaga laga rabaa inuu nadiifiyo inuu siyaasadda Soomaaliya dhaqaalaheeda iyo ciidanka Soomaaliya oo shaqadan qaban lahaa 4,000 oo ciidan ah 22,000 baa ku qoran warqadan oo AMISOM ayaa waxay qaadataa kiiba $1,000 qaata marka ay leeyihiin Soomaaliya kama noqonaya ama kama noqon karo madaxweyne qofka loo socdo ma aha Umar Cabdirashiid oo wuxuu yahay yaqaanaan ma aha Faroole oo wuxuu yahay yaqaanaan ma aha nin Cabdiwali Gaas ma Axmedoobi waxa loo socdo ma taqaanin oo leenin daarooda ay ka hurdi u laayihiin amxaarada ma taqaanin waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay arkeen shacabka Soomaaliyeed nin ay rabaan oo qabiilka daarooda oo Soomaaliya laakiin abtirsiin aan qabiilka ka soo jeedo oo leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay arkeen xabashidi waxay arkeen kacdoon uu horkacaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markay Farmaajo arkeen ayay intay fariisteen waxay yiraahdeen maxaa la sameeyaa waxay dhaheen waxa la sameeyaa in la yiraahdo nin daarooda dalka madaxweyne kama noqon karo kursiga inta la ka war adoo wiil Soomaaliyeed adoo gabar Soomaaliyeed adigoo Soomaali libaax Afrika integrate minority oo ku yiraahdo nin reer hebela oo kala qaado ku nin reer hebela kama noqon karo madaxweyne Soomaali waa waxyaabaha inaga ay nisbadnay weeye oo loo baahan yahay in aan si dhab uga jawaabno waxa weeye qodobka ugu dambeeya waxaan ku eegayaa madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ku raadinaya xil laga qaaday oo kuwii u doortay ay ka cishadeen
ku raadinay musuq maasuq laakiin dhinaca kale waxa yaab leh in isagoo weli sheeganaya madaxweynihii galmudug uu haddana yidhaahdo waxaan ahay la guddoomiye madaxa oo la xasaga guurtay nin sheeganaya madaxweynaha galmudug uu ku noqon karaa sharciga siinayo ilaa hadda ma fahmin oo uu leeyahay waxaan ahay madaxa oolaha mataqaanaa xasan garguurte iyo waxaan ahay madaxweynihii galmudug waa laba askeenin maanta xildhibaan axmed cali geelaxaaf ayaa shir jaraa'id ku qabtay muqdisho waxa uu shaaca ka qaaday inuu yahay murashax u tartami doono madaxweynimada galmudug state sidoo kalena murashaxiin badan ayaa toddobaadka isu diyaarinaya in ay shaaca ka qaadaan damacooda ku saabsan inay cabdikariim xuseen guuleed oo galmudug xilkiisa laga qaadana waxaa muuqato inay horseedi doonto in galmudug la helo xoogan iyo in dib loo furo dekedii hobyo sidoo kalena la yagleelo goobaha waxbarashada iyo adeega bulshada laakiin ugu dambeyn caawa waxaan la wadaagayaa xanuunka faraha badan 95 dhalinyaro Soomaaliyeed oo gabdhihii wiil isugu jiro oo muddo dheer u sii tahriibay dalka Mareykanka oo kuwii magacooda sheegtay ama safaarad joogay ay lacag ku qaateen oo biri iyagoo ka tirsan magaalada Muqdisho waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nin Soomaaliya ka soo baxay waa cansuriyeen annaga laakiin Soomaali Muqdisho hooyo way hooyo qof walba u imaado ay jilbaha saartaa ilmaheeda way meeqa joogta inta oo heer Somaliland ah madaxa korkiisa ay naga saarayeen intaasna waxaan u sheegaynaa inaan ka muwaadan inaan nahay ilaahay idinkiisa oo idinkayn ahayn Soomaalina mid qurayna qanay insha Allah ta'ala riyay ku jiraan waxaan leeyahay riyada ka baxa maxamed yuusuf oo ani garoonka waa igu xirtay awood waa ii sheegatay akusa maxaad u caysay adeerkayga maxaad u caysay adigu xirtay koodhe awooddaada iyo kartidaada waa itustay laakiin ogow tii ilaahay inay ka weyn tahay ilaahaygi lugtayda qaadi haddana iga kiin soo bixi ma sha Allah iyo dhamaan taageerayaalkayga adduunka oo ugu horeeyo saaxiibkayga walaalkayga insha Allah Sheekh Shariif Sheekh Ahmed saan kugu saadaaliilay waa insha Allah wada madaxweyne naqay bidnillaahi kariim sida aad arkayseen ba ajlaaga weyn ee Ajax waxa uu muujiyay dareen la yaab leh oo qof kasta oo Soomaaliya uu qalbigiisa dareemi karo sidoo xaalku yahay waxa yaab leh in xildhibaanadii iyo mataqaanaas xildhibaanadii aqalka sare iyo aqalka hoose iyo siyaasiyiintii iyo ganacsatadii Muqdisho joogay ee ka soo jeeday Hargeysa ee ka soo jeeda Burco aysan weli ka hadlin sababta Ajax loo xiray waxaana yaab leh in ninkii hadda madaxweynimada ee waqti ka dhamaaday oo jooga xasan garguurtay iyo kooxdii damajiid oo aan ka hadlin oo Shariif Sheekh Ahmed telefoonku waa asiilaanyo oo yiraahdo Ajax 12 saacad ku soo daa waxa kale oo yaab leh kuwa waxaasi falaya ee shalay nasteexeendo ka soo eriyay Hargeysa ee u diiday nasteexeendo inay show ku qabato ee Ajax markuu taga soo xiray inay maanta soo baxayaan kuwii kala gooynta ummadda Soomaaliyeed u heesayay ee gabadha islaanta lagu magacaabo Yurgeeyo ay kamid tahay ay xamar joogto oo ay doonayso inay lacagta xamar hesho oo dhalinyaradu u galaan sidee loo galaya dadka madamiirkay baaleen dadka ma aqligay la yihiin kuwa markuu jilaaga xamar ka tagay xirey xamarka ah ama gabadha xamar ka soo jeeda marka tagto soo masaafurinayo ay iidu raali ka tahay sidee naagtii u heesaysa kuwaas ee kala gooynta u heesaysay ee dhahaysay ee xamar inaad tago inaad dhintaan ka xigaa iyo mataqaanaa ma muraala dilaaceen ma ooyeen ma qayroodeen ma burbureen ma qarxintii ku heesaysay Yurgeeyin lahaa ma waxay mudan tahay inta xamar timaado in lagu soo dhaweeyo saas ma Yurgeeyin mudan tahay dadka damiirka u saaxiibka waxay leeyihiin maya mamun gabadha jijiga tagtay ee wiilashii gabdhihii Soomaaliyeed ee ogaadeeniya ee Soomaali galbeed ee la xasuuqay ee ku dul heesaysa beedkooda iyadoo tuuta xiran ma waxay mudan tahay in loo galo show ay xamar ku qabanayso may waxay mudan tahay sidii looga eriyo Nairobi in looga eriyo xamarna Soomaalinimada kuma imaanayso sahal iyo ciyaar kuma imaanayso
wiilkaaga yarkaa gabadhaada yarkaa ee xamar ku dhalatay haddaad fahamsanayn qadiyad waxay tahay waa inaad fahamtaa qadiyad waxay tahay waa inaad dadka ugu sarraysaa ee inaad dadka ugu hoosaysaa ma aha qofka aan kuu quurin jiritaankaaga ee qaraxa ku soo abaabulaya ee qofkaaga reexa markaa heetaga ku soo tarxiyadaya ee ku xiraya ee ku bahdilaya kuwa u heesaya ma ahan inaad u gasho oo show u gasho ma aha warar kale ee xiisaha badanna waxaa ka mid ah in markab hubsiday oo la sheegay inuu ku socdo deegaanada Puntland lagu qabtay badda Kismaayo iyadoo markabkaasina iminka gacanta lagu hayo hub fara badanna uu sido dhinaca kalena markii ugu horeysay musharaxa madaxweynimada Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu muujiyay wadaniyad ama tilaabo uu hore u qaaday ayaa waxay noqotay mid in lagu amaano uu ku muteestay kadib markii uu telefoon kula hadlay habeenimo xilli xiray jalaaga weyn ee Cabdi Muruudi Ajax madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaanyo isagoo u qabtay in 12 saac gudahood ninkaas magaalada Muqdisho loogu soo celiyo si nabada sidaasina waxa xaqiijiyay oo warbaahinta u sheegay Ajax oo maanta soo galay barta Facebook ee dhibay xiritaankii lagu xiray Soomaaliland ee gardarada ahaa ee foolxumada ahaa ee Soomaali naceebka ahay wa salaamantiin intaad ii doodeen intaad ii qayliseen mas'uul madax musharax ma sha Allah oo Sheekh Shariif Sheekh Axmed kow ka yahay boqolkiiba boqol waa idinku mahadinaa ilaahay ka soo waa idinku shukrinaa ma sha Allah ee waxaan idin sheegaa mid ha ogolaanina in aniga apologies hadda aan bixiyay apologies ka shaatiga guduudan aan wato waa 2 sano ka hor waa markii ay universal xiraayeen ma aan hadda apologies aan bixiyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin nin waxa ay xiri shakhsi ah oo ujeedada gaar iga lahaay waana agaasimaha ee garoonka waa nin la dhahayo Maxamed Yuusuf oo dheer ninkii madoowi Yuusuf aan xiri madoowi Yuusuf waxa adeer u ah cakusan la dhahayo adeerkayga see ku caysiyo aniga igu xiri waa nin takana qabo qaranka Soomaaliland iyo ma matili karo mas'uul ma naqo karo marka waxaan leeyahay ninkaas mas'uul ma naqo kare mas'uuliyadda laga qaado waaye nin igu xiri waaye adeerkayga cakusad caysay waad xiran tahay laakiin baasaboorkayga iyo wixii kulli taamay ahaayeen visa ante kiime safir ma noo fadhiya xagoona Soomaali visa u qaadaha may iika baasaboorka isku baasaboor leen banaybe kan lay wataan iika be xamarna waa buuxan alxamdulilaahi rabbil caalamiin jagooyin ay ka qabteen mas'uuliyiina laga dhigay waxaan ogeysiinaynaa inaan ka adkaysi badan nahay inaan ka karti badan nahay inaan ka sharaf badan nahay inaan Soomaali jecel hayno inaan diyaar u nahay Soomaali inay midowdo laakiin ayaga magac Soomaali waa dhiba nin Soomaaliya ka imaadi waa lacagta $10 $20 aad ku bixinaysa show Yurub geeyo iyo cusuriin lamida ku bixi abaaraha gudiga abaaraha u geey hadda caawa geey gudiga abaaraha hadda lacagta heli karto hees YouTube ku jira ka daawatee lacagta gudiga abaaraha ku bixiya lacagtaas gudiga abaaraha lagu bixiyo qofka xaalba kuma dhalan qofka lacag dadka gaajo dhimanaya show ku gala xilligan lagu jiro qof xalaal ah ma aha qof Soomaali oo xalaal ma ah abaar baan nahayso abaar xun baan nahayso dadku way dhimanayaan xoolihii baa iscunaya qofka waa xili kara ee dhalinyaro ah intuu tumasho iyo show iyo baqti iyo habar cusri u tigi lahaa lacagta ha ku daro gudiga abaaraha u geey
dhinaca kale sheekada ugu xiiso badan magaalada muqdisho waxay tahay in qof doonaya inuu Soomaali madaxweyne u noqdo uu madaxii Allaha doorashada ka dhigto ninkii cadawga ahaa ee ummadda Soomaaliyeed dhameeyay ee la yiraahdo Korneel Gabra in Korneel Gabra uu madaxa Allaha doorashada Xasan Garguursan noqdo dimbi ka weyn miyaa jiro soo qiyaamo qaran ma ha anigu waxay ila tahay waa qiyaano qaran waa dimbi weyn la kala weyn oo loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ku baraarugaan Xasan Garguurte qaranka dimbi ayuu ka galay dimbigaas oo galay waxa la doonayaa in lagu qaado xildhibaanada waxaan leeyahay haddii maanta aad arkaysaan Gabra inuu leeyahay Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweyne ka noqon miiska Koonfur Galbeed haddaan taageerin qofkaan rabno asoo Etoobiyana oo Korneel cadow ah maxaa u marinaysaa birka maalin maxaa soo socdo waxa weeye waa inaad muujisaan maanta Soomaalinimo waa inaad codkiina ku ridaan ugu ridaan kuwa xabashada nacbihiin waa doqonnimo inuu Gabro Camar jooga maanta yiraahdo Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalkan wax ka noqon maayaan waa doqonnimo inta garaa minority ah intay ay soo ku shiraan ay yiraahdaan nin daaro oo Soomaali madaxweyne kama noqon karo sababta ma taqaanaa Cabdiweli Gaas iyo Axmedow u nacmley oo daarooda halkii rab inay aga garaacaan ay u nacmleeyeen waxay arkeen inay isu dhiibeen marka way bahdilayaan macnaha meel ku soo hobsadeen Cabdi Ileeya intuu u dhiibeen meel ayuu wixii daarooda madaxa ka jiray oo goduga buuxiyay marka waxa soo socda waxa weeye waa Soomaali kala qaybinayo waa inaad dhigtaa qofka hawiyaha oo si gelin daarood madaxweyne ma noqon karo daarood madaxweyne noqon kara tireweyne madaxweyne noqon kara shaansho madaxweyne noqon karta bandhabo madaxweyne noqon kara ma fahamto ma dhibaan madaxweyne noqon kara qof kasta oo Soomaaliya oo dalka Soomaaliya u dhashay madaxweyne ka noqon kara qabiilku doona ha ahaado ha laakiin maxay dimbi tahay in Gabra oo madaxa Allah ka dhigta Xasan Garguurte inta Soomaaliya dhan kalsoonaa waay inuu Itoobiya ka raadiyo maxay u macno tahay aniga kama jawaabay waxa ka jawaabaya xogayaha guud ee xisbiga Darjar Axmed Macalin Faqi guud ahaan su'aalihi haddaan isku soo koobno anigoo taas ku soo khatimaya waxaa la yidhaahdaa adduunka waxaa ceeb ka ah maahan ceeb waa la isku maxkamadayaa waa khiyaano qaran waay iyo dad waaweyne qof agaasime la shaqaynaya dowlad ajnabiya waa la isku maxkamadayaa dowladda waa khiyaano qaran haddiiba ay tagto arrintu in bannaanka intay ay timaado in madaxweyne geysto meel kalena way ka sii daranta markii la rajeeyay dadka Soomaaliyeed waxay ku naaloonaysa 25 sano kan soo hayay khasaare noqonaysa hadiiba taasi ay dhacdo oo madaxtooyada Soomaaliya la geeyo cid ajnabi u ololaynaya ama ajnabi wato waayo aqliga uu meeshaas la fariisanayo waa aqliga lagu jeclaaday waana aqli la meerinayo oo kor laga soo meerinayo taasna inta badan uma dhawa maslaxadda dadkaas ama dalkaas markaas qofkaas xukumayo marnaba marka xildhibaanada horaan u sheegnay waajib baa saaran waxayna dooran doonaan runtii sanadkan ay tijaabo noqon doontaa waxay dooran doonaan qofka ugu wadanisan qofka mayno qofka ugu wadanisan oo dalkan la isleeyahay uu ka saari karaa dhibaatooyinka ah in inta madaxdii gobolada loo yeero oo wadan kale inta looga yeero la yiraahdo hebel maaragtay u ololeeya Shariif Xasan oo South West haysta haddaan soo magacawnaba toos baa inta lagu tagay oo Gabra ugu tagay ayuu ku yiri xilkan ka qaadaynaa 1 week toddobaad gudihiis haddii aadan taageerin musharaxan wadano ah madaxweyne hadda xilku dhamaanayo oo madaxtooyada yani halkaasi maraysa arrintii Soomaaliya marka runtii xildhibaanadu waajib baa u yaala nimankaasi isku dayooda way sameeyaan waan isku kaadee waxa la yiri hadii meeshii ili ka dhaco carabka u haweystaa la yiri Soomaaliya dhulka dhacday waana la haweysanayaa wax kasta oo xun baan la ku sameeyay inaan noolaano oo la hadlo xitaa waa la gabayaa dad badan baan hadda xitaa intaas yar tahay oo la sheegayo aan sheegi karin ama meel la soo istaagi karin halkaas ala maraya laakiin waa la diiday anu marka waxaan dhihi lahaa arrinta qabyada ugu weyn oo dawladaha dariska qabyada ka waxay tahay Soomaaliya inay qaataan sidii Zakariya ayaan xildhibaankan ku raacsanahay wax u dhiman oo hadda filla Soomaaliya u dhiman kaliya yani filla Soomaaliya
arrintan way ku xayndaab bay ku jiraan iyo waxaasay ku jiraanna anigu waxaan isleenahay Soomaaliya waxay u baahan tahay gabigeedaaba dib u xoreyn u baahanba madaxweynahayna ka bilaabanaysa waxa weeye madaxweyne dalkan u shaqeynaya oo danihiisa ka shaqeynaya marka meeshaas la geeyo xayndaabka madaxweynaha isaga laga rabaa inuu nadiifiyo inuu siyaasadda Soomaaliya dhaqaalaheeda iyo ciidanka Soomaaliya oo shaqadan qaban lahaa 4,000 oo ciidan ah 22,000 baa ku qoran warqadan oo AMISOM ayaa waxay qaadataa kiiba $1,000 qaato marka ay leeyihiin Soomaaliya kama noqonaya ama kama noqon karo madaxweyne qofka loo socdo maaha Umar Cabdirashiid oo wuxuu yahay yaqaanaan maaha Faroole oo wuxuu yahay yaqaanaan ma ahaan Cabdiwali Gaas ma Axmedoobi waxa loo socdo mataqaanin oo leenin daarooda ay ka hurdi u laayihiin amxaarada mataqaanin waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay arkeen shacabka Soomaaliyeed nin ay rabaan oo qabiilka daarooda oo Soomaaliya laakiin abtirsiin aan qabiilka ka soo jeedo oo leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay arkeen xabashidi waxay arkeen kacdoon oo horkacaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markay Farmaajo arkeen ayay intay fariisteen waxay yiraahdeen maxaa la sameeyaa waxay dhaheen waxa la sameynayaa in la yiraahdo nin daarooda dalka madaxweyne kama noqon karo وسؤال تأويني دلك يا إسكالي وسؤال تأويني دلك يا إسكالي كتاعد وهالي ودني لا تدارالي كتابع عيالي دينكي وداتشالي وحليني أنا كل مجرد برنامج شدي قارك إفرين أبديت كأما حكسينتا في النمو أنا أقول هلا أريمها قدام بصوماليا وأنا أكون بالله اللي يرجع إلا إيو سجاشن إيشان اللي يرى الصومالي ورجع يضم رسول جرو أي حبسية ضل كمريكا لجسوا أروري أو مدة كحرية لجسوا صاري وأنا اللي يحجي إن جود وتديار ذيك قاعدي ضل كمريكا كإيجو بريتو لو إن لجد جيو جرون كأنا عدي مجال مقدشو dhalinyaradaasi oo la rumaysan yahay in ay iibsadeen ama ay ka shaqeeyeen sidii loo tarxiili lahaa ragga jooga safaaradda Soomaaliya ee dalka Mareykanka oo Taabid Cabdi iyo Mastar Cawad kamid yahay waxa la socdo ciidamo Mareykan ah oo geyn doona magaalada Muqdisho muddo dheer ay ku xiraayeen dalka Mareykanka dhalinyarada Soomaaliyeed dhinaca kalena haddii aan eegno madaxweyne Xasan Garguurte ayaa waxa uu ku amray ciidamada jooga degmada Cadale in ay si degdeg uga baxaan oo ay difaac ka galaan deegaanka Ceelmacaan ama dekedda Ceelmacaan iyo dhulka mataqaana Jiiri Cisley ilaa Warshiiq waxaa la sheegay intaasi uu ka wato qorshe uu doonayo in uu ammaanka ku qalqalgeliyo maxay haddii ciidanka xoogga dalka ay ka soo baxaan Cadale iyo Raagaceele iyo dhulkaas ay joogaan waxay taas macno tahay inay al-shabaab qabsan doonaan oo ay al-shabaab la wareegayaan deegaanadaas
dhinaca kalena waxaa la sheegay in xasan garguurte uu ku lug leeyahay dagaalada ka soo cusboonaada gobolka shabeellada hoose isagoo doonayo in uu furo jihooyin dagaal si dadka ugu mashquuliyo in dalka uu colaado ama dagaalo ay ku jiraan oo dagaal lagula jiro argixisada al-shabaab